الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم waxa aayadahan aynu dhageysanayna ama suuradan suuratul qalam ku jira qiso asxaabul janna la yiraahdo qisadaas waxay sheegaysaa qolo beer lahaa oo beerta berigii hore aabahood sadaqa ka bixin jiray oo markii ay iyagu dhaxleen ayay habeen heshiiyeen oo waxay dhahan beertii aroortaan ku kalahan wax miskiin ihiba intaanu soo kalihin ka hor heshiiskaasa habeenkii la gaadhay inaan sadaqadii beerta laga bixin jiray laga bixinin habeenkii baa ilaahay u weydaarto haamaday buu mariyey macnaha dab ololayaa leefay meeshii dambaska ah oo baabay u tageen halkaasaynu isyara dul taagaynaa bacd alfawaa'id min asadaqa sadaqadu faa'iidooyinkay leedahay qaarkeed iyada oo aynu bisha aada wax loo soo bixinayay allah inagu aqbalo bedel khayr qabana allah inaga siiyo faa'iidooyinka sadaqadu waa laba nooc qayb balaayooyinku ilaahay dadka kaga difaaca qaybna barkhada iyo khayrka ayaa ilaahay ku siiyaa waxyaabaha dhibaatooyinku ilaahay addoonka kaga daaweeyo qaar ka mid a haddaynu sheegno waxa ilaahay uu kulaylka kaga qaadaa quluubta qalbigu hadduu ka kanaado ama kadeedmo sadaqadu ilaahay ku qaboojiyaa subxaana wa tacaala in asxaabiyaa nebiga u yimi oo xadiid saxiixa waxa uu leeyahay qalbigaygu waan garan lahay rasuulku wuxuu ku uhi salى اllahu عalayhi wasalam in aradta talyiina qalbig faadcim ilmiskiin wamsax ra'sa alyatiim haddaad doonayso qalbigu inuu kuu qoyo masaakiinta quudi agoomahana dhakada u masax adoo wax siinaya labadaasuu qalbigaagu ku qoy waxyaabaha ilaahay uu ku qaboojiyo sadaqada waxaa ka mid ah xanuunka jidhka iyo kulaylkiisa ilaahay sadaqadu ku qaboojiyaa kuna bogsiiyaa rasuulku wuxuu leeyahy salى اllahu عalayhi wasalam daawuu mardaakum bisadaqa dadkiina bukaanka ah sadaqada ku daweeya adiga iyo ehelka iyo asxaabtaba waxa ilaahay uu ku baktiyaa sadaqada caasinimadu kulaylkay leedahay wالsadaqaةu tudfiu اlkhaiئa kamaa yudfiu اlmaau الnaar waa wada axaadiid saxiixa kuwaynu soo qaadanayna bahasha sadaqada la yidhaahdaa waxay baktiisaayay u baktiisaa gefka iyo macaasida ilaahay ugu masaxaa kulaylkeeda uga biyaa qofka sida dabku u bakti biyuhu dabka u baktiyaan oo kale waxaan la yidhaahdo caasinimada iyo dembigu waa kulayl naar baa ka duulaysa ilaahay sadaqadaasu ku qaboojiyaa macnaha ku masaxaa dembigaa lagu dhaafo waxaa laga yaabaa dad dunuub badani maadaama ay deeq bateen in labada xisaabood la isu jiro ilaahay kaga dhaafo subxaana wa tacaala waxa ilaahay uu ku baktiyaa kulaylka ay leedahay qoraxda qiyaamuhu qoraxda qiyaamuhu kulaylkaay leedahay ilaahay baa kaga qaboojiyey qofka nebigu wuxuu leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam kullu mri'in fii dilli sadaqatihi yowma alqiyaama qof waliba maalinta qiyaamaha waxa uu hadhsanayaa sadaqadiisa harhkeeda sabcatun yudiluhum allahu fii dilli toddobadu ilaahay harhkiisa u hadhaynaya waxaa ku jira nin sadaqada bixiyey qof sadaqa bixiyey maalinka la kululyo la kadeedan yahay qofkii sadaqada badnaa ilaahay har buu u samaynaya waxyaabuu ilaahay kaga qaboojiyey qofka waxaa ka mid ah cadhada alleh cadhada alle allah inaga nabadgeliyo sadaqada ayaa ilaahay cadhadiisa meesha kaga saaraa ina sadaqata sir tudfiu qadab arab sadaqada sirta ah ee masaakiinta iyo dadka baahan hoos loo siiyo cadhada ilaahay bay qaboojisaa ilaahay baa subxaana wa tacaala ku farxa wakadalik waa qodobka lixaade kulaylka naarta iyo kadeedkeeda iyo dhimbiliheeda ayaa ilaahay uu gaashaan uga dhigaa itaqu الnaara walow bishiqi tamr xadiidkii bukhaari war naarta gaashaan bay u baahan tahay gaashaan isaga dhiga xabad timira jeexeedna ha ahaate dad badan baa waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin wax buuran in la bixiyo markaasaa isagu haatiduu badinayaa keen dhiibiba maayo inta yar iska dhiib tan laguu dhiibuu sii kala jeex sidii asxaabtii nebiguba ahaayeen nin baa isagoo qaawan dhar loo ururiyey markaasuu dharkiibuu qaar ka mida markiiba bixiyey
nebigaaba ka ergeeyo war waxba ha bixin adigu iska hayso sidaasaa dhaqankoodu ahaa markaa masaakiinta iyo dadka fuqarada ah ha loo sheego si ay ugu korodho inuu iska dhiibo wax lixdaa shay waxa weeye balaayooyinka iyo kulaylka iyo kadeedka adduun iyo aakhiro ee qofka ilaahay sadaqada uu kaga hakinayo kaga difaacayo farxad iyo faa'iidooyinka ay leedahay waxa ka mid ah dee inuu ilaahay balaayadii kaga badbaadinayo qoladani hadday sadaqada u bixin lahayn sidii aabbahood beertu kama baadeen laakiin macasiyaal bay noqdeenoo way garan waayeen maalku ilaahay ku barakeeya maalku badnaanta maahe waa barakada marka hadduu qofku sadaqada bixiyo wuu soo maaxanayaa wuu barakoobayaa maa naqasa maalun min sadaqa xoola uma dhinmaan oo uma yaraadaan buu nebigu sadaqada laga bixiyey sadaqadaa laga bixiyey maalku u yaraan maayo haddaad aaminsantahay inuu ku yaraanayo maalku sadaqada wuu ku hagaagaayo hadduu mood yahayna manficiisaa ku bato hadduu nool yahay baan leeyahay manficiisaa ku bato cadkiisa iyo caanihiisaa ku wanaagsanaado ku macaanaada haddii uu mood yahayna suuqiisa iyo kastamarkiisiiya waa bata alaabtiisu qofka casiis bay noqotaa deeqda badan nebigu calayhi salaatu wasalaam qolyaha ganacsatada buu la hadlay waa xadiid saxiixa oo tirmidi uu warinaya iyo axmedba min xadiidi abi kabsha tijaartii buu la hadla wuxu uhi yaa macshar atujaar ina hada albayc yaxduru fiihi allagwu waalxalf fashuubuuhu bisadaqa ganacsiganaa wadaan waxaa buuq badan iyo lagwi iyo dhaar lagu dhaartay iyo waxaasaa dhex soconaye waxaa ku qaboojisaan sadaqada ayuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam dhaartaa beenta ah iyo waxyaabahaas barakaday ka qaadayaan iyo isweydaarka iyo buuqaasiye dhaalka karka ka qaboojiya si uu barako bato qofka laftiisiina ilaahay wuu ku anfaca subxaanahu wa tacaala qofkii maalka bixinayey barkadii iyo khayrku ilaahay ku siinayay ka mid tahay wuxuu ku helayaa ducada malaga waxaa yaraynu bixinayno ducada malaa'igtaynu ku helayna habaarkana waynu kaga badbaadayna waa arrin cajiiba inaad malag ducadii heshaana waa wax weyn in habaar malag kugu dhacaana waa musiibo weyn rasuulku wuxuu leeyahy salى اllahu عalayhi wasalam ma min yawmi yusbixu اlcibaadu fiihi ilaa malakaani yanzilaani fayaqulu axaduhumaa allahuma acطi munfiqa khalafا wayaqulu اlآakar allahuma acطi mumsikan talafa laba malag baas maalin walba soo degaya shaqadoodu waa maxay midna wardigiisu waa ducaw midna waa habaaru bal ka waran malag baa la soo taagan un ducaw ilaahay kii wax siiyaba bedel khayr qabasi ka kalena waa agtaagay waxay ilaahay kii wixiisa haysta ilaahay halaagsi talafsi talafku culimadu waxay leeyihiin talafun baa waa dhimasho ma isagaa dhimanaya ma maalka ma labadaba wala isku daraya anin dhaweyd baa waxaan eegay clip yaroo ay qoliyo soo duubeen sadaqada ay kaga warramayaanoo masaakiin halkan laamida agteeda taagan ayay ruux dumari sidaa sadaqa u siisay markay hal tallaabo sidaa u dhaaftay ayaa masaakiintiiyo intii ka dambaysayba gaari qaatay gaari waddada ka soo taraaray ayaa dadka wax u dhiibtay iyo gidaaradiiba burburiyey iyadiina hal tallaabo buu seegay sidan waa ka raadkii sadaqada marka talafku xooluhu noqon karaa qofka laftiisana wuu noqon karaa labaduba waa suuragal waxaa ka mid a waxyaabaha qofka ay u leedahay sadaqadu iyo barakooyinkeeda wuxuu ku gaadhaa xaqiiqat albir samafalka dhabta ah watacaawanuu cala albiri wataqwa ilahay wuxuu leeyahy samafalka isu kaashada soo maa samafalka dhabtaa waxaa lagu gaadhaa sadaqa saxoo la bixiyo ilaahay muxuu uhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun samafalka dhabta ah ee ilaahay agtiisa tayada leh gaari maysaan jeeroo waxaad jeceshi wax ka bixisaan allah inoo saxiro waxaa lagu gaadhaa afdal darajaat darajooyinku way kala sarsareeyaane nebi maxamed wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam darajooyinka u sarreeya waxaa lagu gaadhaa laba isa saara deeq iyo diin inuu dadku bixiyo oo qofku hadduu deeqdana bixiyo dunyada ilaahay siiye ka bixiyo diinta ilaahay uu barayna aanu ku bakaylin ee uu dadka wax siiyo ilaahay daacad haynooga dhige afdalu lmanaasil darajada u sarreeyuu taagan yihi xadiidkii saxiixa wuxuu nebigu ku uhi inama dunyaa liarbacati nafar meeshan adduunyada afar qolun baa dhex taagan oo dhex wareegaya ka horeeya wuxuu qof ilaahay uu siiyey maal iyo cilmi xaqiisiina gartay cilmigiina ku camal falay cuudkiiyo xoolihiina wax ka bixiyey wa haadaa biafdali lmanaasil buu nebigu darajada u sarreeyuu qofkaasi taagan yahay waa laba arrimoodoo khatara buu dadkii uga gurbaday faqriga iyo jahliga
faqriguna dee waa darxumadii jidhka iyo qaawanaantii jahliguna waa darxumada ruuxda oo cawrada iyo ceebta u weyni jahligay kaga timaadaa qofka cawrada iyo cudurka iyo kadeedka u weyn waa jahliga marka labadii midna ruuxda ku dhacaysay dhibaatooyinkii midna ruuxda ku dhacaysay midna jidhka ayaa qofkaasi dadkii uga gurmaday saddexda kalena dee waad sii garanaysaa waa qof ilaahay uu cilmi siiyeyoo isagu waxba ma hayo laakiin adduun wanaagsan buu tamaniyayaa oo meel fiican uu ku bixin lahaa kaasina ka hor u raacay labada kalena waa laba jaahiloo ishelay jaahil xoolo leh oo dabeedna xumaan u isticmaalay haadaa biakhbath almanaasil kaasi wuu liitaa buu nebigu ka kalena waxa weeye mid duunyana ma hayo diinna cilmina ma hayo laakiin kaa xoolaha haystun buu leeya ilaha xoolihiisaas oo kale yaa ku dhiba aad ku tumatid aada xaggaa iyo xaggaa ugu rid aada khamriga ku cabtid a waxaan ku samaysid isagu waxay isu raacay ceeb iyo calaflaan iyo caydh waxna ma hayo waana dembiile balna casnimada intaa la ege markaa afartaasay adduunyada u siraadan tahay buu ihi dee labada silcaya iska ilaaliyo labada hore u socday ha la higsado idan markaa waxaynu kusoo ururinaynaa 12 arrimood baynu sheegnay oo calafkii sadaqada lagu helayo ciqaabku ilaahay ummadda kaga nabadgelinaya ayaabahay qaaliga ahayd baynu maraynaa aan ka faa'iidaysano oo aan khayrka ku daba goosanna insha allahu tacaala allahna ha inaga aqbalo ikhlaasna allah inooga dhigayo daacad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي